Maanta waxaa lagu wadaa in Muqdisho ay yeeshaan kulankoodii ugu horreeyay Guddiga Qabanqaabada Doorashada Guddoonka Golaha Shacabka ee Baarlamaanka 11aad ee Jamhuuriyadda Federaalk Soomaaliya, oo ka kooban 10 xubnood oo xildhibaano ah, isla markaana la magacaabay maalinimadii shalay kadib kulan ay yeesheen baarlamaanka. Sidoo kale, xubnaha guddiga ayaa maanta iska dhex dooran doona guddoon, kadibna waxa ay gudagali doonaan howlaha shaqo ee diyaarinta doorashada Guddoonka Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya. Guddiga magacaaban ee xildhibaanada ah ayaa haysta muddo cayiman, waxaana laga sugayaa in ay ku dhawaaqaan jadwalka doorashada ee Guddoonka Golaha Shacabka, iyaga oo ka horjeedin doona xildhibaanada Golaha Shacabka warbixin ku aadan qorshahooda shaqo ee guddoonka. Gudoomiyaha ku-meelgaarka ah Cabdisalaan Liibaan Dhamancad ayaa sheegay in dardargelinta howlaha shaqo ee baarlamaanka Soomaaliya horyaalla si dalka iyo dadka uga baxo xaaladda cakiran ee uu ku jiro ee la xiriira abaaraha iyo jahwareerka siyaasadeed.